waayay ugu dambeyn ninka odaga ahaa waa la caleema saaray ninka aka hadlayno waa hogaamiyaha cusub ee Iran ninka lagu magacaabo Mojtaba Khamenei waa wiilka uu dhalay odaygii la dilay ee Khamenei sawir muuqaal waxa idin wadaa muuqaal ninkan oo da'yar 15 jir ah oo Iraq ka dagaal kula jiray Saddam Hussein waa 8 ninka marka horta waa laga wada argagaxay doorashadiisa oo waxay noqotay kudka guur qanjo u guura noqotay nin aad u xanaaqsan aabihiisba ka daran war odagaya roonay odagii Khamenei ahaa ayaa roonay mintidnimo markii la fiiriyo ninkan markaa rabtid inaa qaabka mintidku u yahay macnaha qadiyadda dhulkiisa iyo diinta iyo se ugu weyntahay iyo nacabka u qabo Mareykanka Israa'iil waa Osama oo aanan biyo la marinin waay midas migahasa Osama bin Laden aad taqaanay oo biyo aan la marinin waay markay halkaa joogto ninka waa laga sii xanaajiyay aad u xanaaqsan yahay sababtoo ah aabihiis iyo xaaskiisa Sahra maamadan qoftaana u jeedaan maamadaas ayuu qabay xaaskiisa u dhaxday ahayd islaan afgaaban oo masaakin ah lagu tilmaami jiray idaacadaha telefishinada saxaafadda Iran waxay ku tilmaamaan maamada la dilay ninka uu qabay Zahra qof afgaaban oo odaygeeda raali u ah oo gadaalka yani laakiin haddana markaas u fiirisid dhabar taagneed garab taagneed horboodeysay dhan walba markii la fiiriyo caruur 3 ah ayay isku dhaleen ninka odayga hadda la doortaa ku iri Mojtaba aabihiis iyo xaaskiisa Zahra aabihiis waa odayga weynaa waaye Iran oo dhan aabe ee dhehis aabe ayatullah Ali Khamenei iyo xaaskiisa Zahra iyo 3 cunug uu dhalay laba ka mid ah 30 bom oo aad u waaweyn ayaa lagu dhuftay xitaa lama aasan weli lama aasan weli meedkii frinjeer ugu jira aabihii oo la aasin xaaskii oo la aasin caruurtiisoo la aasin ayaa ninka odayga ah loo magacaabay loona dhaariyay inuu noqdo hogaamiyaha cusub ee bedeli doona aabihiis Ayatollah Ali Khamenei waa kana Iiraaniyiinta oo isku soo baxay saaka kuna dhaartay inay garab istaagayaan hogaamiyahooda cusub Mojtaba Khamenei waa kan muuqaal 1985 dagaalkii waxaa qarxay Saddam Hussein uu ku qaaday Iran iyo Iraq isdagaalay dadka Soomaalida hore waagaas joogtay dagaalka ugu weyn la hadalhayo wuxuu ahaa Iraq iyo Iran Saddam Hussein oo aad u awood badnaa waagaas ayaa wuxuu rabay inuu dhulka qabsado Kuwait uu ku duulay Iran uu ku duulay marka waa kan asagoo 15 jir ah ninkaana u jeedaan oo kiyaala wato waa ninka odaga ah hadda la magacaabo wahay Iran ee magacaawday hogaamin doono waka asaga iyo guutado la socdo waa ugu dambeyn kuwan hadda noqday waaye IRGC wax loo yaqaan ciidamadan hadda Iran ee haysato oo qaliidkii baabi'iyay ebarka dhigay Israa'iilna habeen walba gantaalo ku tuuro Mareykanka saldhigyadiisii gantaalo ebra wadhigay safaaradaha xiray ciidamadan hadda laga baqo oo dhibay bariga dhaxo dhan uu ninkaas aaskeedaba qayb ka ah wata u jeedaanba brigade-ka ama guutada Qasim al-Diji waagaas hadda waxay noqdeen IRGC ninkaas ayaa la magacaabay waayay falcelin fara badan ka dhalatay Donald Trump wuxuu yiri ma yeelino waa sida abiis oo kala dabagelina asagana waa la cuna ay leeyihiin Mareykan iyo Israa'iil aragana inay heli doonaan in kale iyo meesha ku heli doonaan waa arki doonaa laakiin ninka waxa uu hambaliyay jawa hambalyo waxa soo diray ninka la yiraahdo Putin wuxuu yiri hambalyo xilka ilaahay ku laga qabto meesha kasi ayaa la yiri maxaa xiga marka nimayahow maanta dagaalka waji cusub oo galay wajiga cusub waxa ku dareemi kartaa isla markii xalay ninka odayga la dhaariyay ee la caleemo saaray ee lagu caana shubay waa Mojtaba Khamenei laba cruise gantaaladan halista ah waxaa lagu Iran ee ku tuurtay dhulka iyo Turkiya la baraweysana Arabti kale wala soo baraweysad mugta Turki laba cruise masal lagu tuuray xalay NATO hawada gashay gantaaladii soo riday isla markii waxaa hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga waa tuu yiri
بس واي دلقات كان قد ماضي دراد وتو دهاي مرض ما دان سو ويرتي دغال كو غلينا حد وحو تاغيا بس وا دلقات كان قد ماضي ان اف 16 سو كعيان تركيا waxay geeyeen qaybta Qobrus oo Turkiga uu ka taliyo ayaa 3 F16 diyaarada F16 kuwa hadda Soomaaliya la keenay ayuu Turkiga geeyay ninka Faransiis ah wuxuu soo diray guuto dhan oo maraakiib ah ayuu soo diray dagaalka sidiisa kale sidii lagu yaqaan u socdaa droniska cruiska bugta jugta qacda socoto way yaabaysa marka dabcan hogaamiyahan iyo doorashada maanta la doortay iyo xanaaqa ninka uu xanaaqsan yahay aabihiis iyo xaaskiis iyo caruurtiisa laga laayay waxa soo marka isku dirdirtid dabcan waxa muuqato Iran horta wax wada xaajood la dhaho meesha ka saar ninka wiilkan mashaba ma wada xaajood ma bal cidna lama fariisto wixii soo ama idil ama ku dilaa waay warka bacdi ay mashaba ku iri wili aabiisa badhahay hay en hala diro wasiirka arrimaha dibadda hala soo hadlo Mareykan iyo hala fariisto iyo waatu dhihi jiray aabiis ninka wuxuu taagay ama idil ama ku dilaa صوت روح سو توريست انا waxa tuurayo ana waxa tuuri kara tuuraya mushtaba sheekadiis waa intaas nimayahow dagaalka maanta maadaama 10 maalin uu galay oo hadda leeb hogaamiye cusub loo doortay Iran oo wali ciidankoodii sidii wax u soo turturayaan waxa dareemaysaa herkul inuu jiro dhanka Mareykan gudihiisa shidaalka qaali waaye dagaalkan Trump dadku wuxuu ka dhaadhiciyay dadka Mareykanka iyo Congress wuxuu ka dhaadhiciyay isbuuc ma qaadanay waa soo afjara ciidamadan وقد جعسنايا بس waa meeshaas ku dhamaanaysa uu dadka dhaadhicin mogto Israa'iil ayadana hubka ka sii dhamaanay Arabtii wax hadda hub ah oo ay haystaan kulay dabcan ma jirto oo ciidan difaac cirku ka dhamaaday diyaaradahoodii iyo alaboorada la iska duqeeyay Iran hadda waxay u muuqataa inay gacanta sii dheereysanayso ilaa Greega ilaa Turkiga inay sii gaareysay u muuqataa oo Iran ninka odayga ah hadda la doortay in dagaalku uu ka dhigayo dagaal saddexaad ah waayahay meesha ku dambeeso dabcan waa arki doona laakiin maanta jabtar cusub ayaa u furmay dagaalkii bariga dhexe ninka la soo doortay awgiis